الحمد لله رب العالمين. سادك والقبطان وحواي مالمها نشرنا نو سعودي وكصابسن محل لهي سيدي arrimahan hadda jiro oo siyaasadeed wax looga qaban lahaa saaka warqabtaan xildhibaanadii waxa isugu yimid maxaa la dhahay degli marifle shirkooda uu socdaa mar dhow soo gabagaboobi doona waxa laga hadlayaa idin sheegaa wafrinta waxaan u gudbinaynaa bulshadii oo annaga maxaa la dhahay matalayna waxay leeyihiin waxa waaye waxay cabasho ka muujinayaan dawladda dhexe saaka warqabtaan dawladda dhexe 8 Febraayo ilaa ay hadda awood qaybsigii oo dastuurka ku qornaa oo lagu heshiiyey ilaa 2020 laga gaaray in 4.5 wax lagu qaybsado 3.5 waa annaga waabana laga tagay saaka warqabtaan wasiiradii awood qaybsiga rasmi maaha saaka warqabtaan agaasimiyaasha safiirada xogayaha joogtada iyo shaqaalaha kale meelaha muhiimka ahba waxa dareemaysaa in maxaa la lahay nagu xadgudbay annaga markaan waxaa agaasimo badan oo meelahooda laga soo bixiyey oo shaqooyinka intii laga joojiyey dad kale la magacaabiyaa jiro safiirada saas oo kale xogay joogtadii kii ugu dambeeyay hadda waxa way xogayaha joogtada wasaaradda batroolka waaye cabashu noo keenay annaga matalay annaga macnaha shacabkii annaga matalayno ama shaqaalaha ahaado ama shacab ha ahaado ama ganacsada ahaado waxay leeyihiin maxaa la lahay ayagoo shaqadooda ku jira in la bedelaan waxa way qof kale lagu bedelaa waxaan u arkaynaa taas inay qalad tahay aan dadkaanba la rabin in maxaa la dhahay laga tirtira la rabo dawladda dhexe saasaan aaminsanahay marka annaga waxa aan matalayno waxa waaye dawladda dhexe waaye xildhibaan qaranana markaan xildhibaanadeena waa soo imaanay waxaan rabnaa maxaa la dhahay ku dhawaad ilaa 69 xildhibaan waa in go'aan rasmi aan soo saarno markaan bulshadaan u sheegaynaa in hawshii lagu jiro saakaan noogu dambeysay dad cabashaa noo yimid saaka warqabtaan waxa waaye awood qaybsi sax ah meesha ma jiro dadkii ugu dambeeyay daraad taliyaashii ciidamada la magacaabayay uu madaxweynaha magacaabay waa ka warqabtaan xaaladooda labadii annagana naga qaaday waxa waaye qolo kale la siiyay loogu daray loogu labalabeeyay markaan waxyaalo badan oo waxa jiro oo sad bursi ah annaga haddaan nahay xildhibaanadii qaranka oo matalay shacabkii oo maanta xataa meesha aniga waxa noo yimid nin xogayaha joogtada oo wasaaradda batroolka jagadiya laga qaaday xogii joogtada la tirtiray agaasimaha la soo magacaabay awood meeshii kuma hayo markaan waxa way hadii taliyaashii saas la sameeyay agaasimiyaashii safiiradii markaan waxaan u matalnaba golihii shacabka waxa waaye annaga dadkii shacabka aan matalayn inaan u sheegno haddaan xilka qaadi weyn inaan isaga tago tusaale ahaan hadda meelaan nagu tiriyaa gudoomiye baarlamaanka saaka warqabtaan gudoomiye waxa idinka la dhahay ha ahaado gudoomiyaashii baarlamaanada waxay soo maray kii ugu dambeeyay jawaari ahaado ilaa ay had kan haya xataa awood qaybsi baarlamaankii dhexdiisa kuma haysan taas sababteedana annaga iskale mas'uuliyiinteena iskale waxa way 18 agaasimo waay hal agaasimo oo waxaan ku leenahay wasaaradda maxalla hal agaasimo oo warfaafinta ayaan ku leenahay agaasimaha warfaafinta ku leenahay waxa way nasiib darro waay markaan waxaan idin sheegaynaa in arintii lagu jiro shacabka maalin walba noo imaanay waxaan u sheegaynaa shira noo socdo shirkaas go'aamadii ugu dambeeya ka soo baxaayo waxaan qaadan doonaa maxaa la lahay go'aan ama dawladdii dhaxan ka mid ahaanayna ama waxa way aayaheena dambe waa ka tashanaynaa markii haddii aan aragnay meesha in aan maxaa la lahay dadka deegaanadan koonfur galbeedba aan waxba loo rabin saa ka warqabtid waddadan muqdisho iyo marka iyo waqdisho iyo baydhabo waa xiran tahay waxay u xiran tahay dad gaar ah dawladdu waa ogtahay waa u sheegnay shirkii ugu dambeeyay amniga laga hadlay maxaa la lahay ilaa had wax laga qabtay male waana guuto meesha deganaa dadkii dhacdo oo maxaa la lahay boob ku hayso kufsi ku hayso oo maxaa la lahay deegaanadii dadkii deegaanadii waa loo diiday in maxaa la lahay ciidan laga qoro oo shabeellada hoose ciidan in la qoro oo maxaa la lahay wadadaas u dhaxayso baydhabo iyo muqdisho xadkooda ilaa leega waa inay intaas qabtaan xataa waa loo diidaya deegaanadii kale boqol saas oo kale deegaan u gudbay male waxaad saad ka warqabtaan gobolka dhan degmadiisa hadda waajid tusaale ka soo qaada hal booliis waa ay leedahay hal booliis oo taliye ah jooga meesha wax ma qaban karaan waay ma qaban karo waay xudur oo gobolkii ah 12 qof waay maxaa noo diiday booliiska ciidamada in la qoro deegaanada hadda muqdisho kamid oo degmo kamid ah waxa arkaysaa dhowr boqol inay joogaan waxa markaan waxa loo baahan yahay arintaas waxa waaye annaga waa ka gadoodnay shir baa noo socda go'aan rasmi aan gaaraynaa mar dhow waxaan soo saaraynaa
maxaa la lahaayay go'aankii annaga aan gaarno inaad ogaataan shacabka maxaa la lahaayay bulshada deegaanada koonfur galbeed